muuqaalkan waxaan maanta kaga hadli doonaa naasa xanuunka xilliga caadada, waxa keeno iyo sida loola tacaalo. Naasaha oo xanuun laga dareemo xilliga caadada waa cabasho ku badan dumarka. Naasa xanuunka wuxuu ka mid yahay waxyaabo badan oo la dareemo xilliga caadada. Waxay haweenka qaar ka dareemaan naasahoodu xilliga caadada ka horeyso wax kuusan oo weyn oo weliba danqasho leh, oo naasahoodu aysan horay ugu ogeyn. Waana wax oo aan kansar ahayn. Markii caadada laga gudbane way yaraadaan oo way dhammaadaan. Sidoo kale xanuunka la dareemo iyo danqashada wax intaa dhaafsiisan ma jiraan. Markii ay dhiigga caadada yimaadaanne xanuunku wuu yaraadaa. Maxaase keeno naaso bararka iyo danqashada xilliga caadada? Arrintan waxaa loo yaqaanaa isbeddelada hormoonka ku dhaco dumarka xilliga caadada ay soo dhawdahay. Sida dabiiciga ah, hormoonka loo yaqaano estrogen aad ayuu u kacaa, kadibna si dhaqsi ah ayuu ku degaa. Taas ayaa keenayso in naasuhu ay bararaan. Hormoonka kale ee loo yaqaano progesterone isaguna wuxuu barariyaa qanjirada soo daayaan caanaha. Marka labadan isbeddel waxaa lagu dareemaa in naasuhu ay danqadaan, khaasatan markii la taabto amaba wax ay ka taabtaan si kedis ah. Naasuhu waxay kaloo u ekaadaan wax buuxo oo weliba xoogaha culays ayaa laga dareemaa. Dareenka naasaha laga dareemo wuu sii yaraadaa maadaama ay haweeneydu da' noqoto. Sidoo kale maadaama hormoonka estrogenka uu hoose u dhaco.